السلام عليكم وكنال كينا تيوري أف سومالي يعني وأه معلي عبد الرزاق oo isku dayi doonaa inuu sharaxo casharada tiyoriga intan ka fahansanay insha allah waa cajaladeenan loo yaqaano bullet ama bullet loo yaqaan oo cajalad hore ah oo xoogaha muddo jirta lakin su-aalaheeda su-aalo aad u fiican ah in yar un laga bedelay waxaan isku dayi doonaa insha allah in cashirkeena noogu horeeyo oo cajaladan ah koowaad in aan noo sharaxo oo aan isleeyahay walaalaha reer Holland Belgium iyo dadkoo dhan u baahan theory-ga inay ka faa'iidaan waxaan leeyahay kusoo dhawaada kanaalkeena iyo casharada theory-ga iyo wixii muhiim ah cashirka inoogu horeeyo waa cashirka koowaad insha allah sida caadada ee casharada ugu horeeyo cashir walbaba wuxuu leeyahay 25 su-aal hore iyo 40 su-aal oo dambe 25 su-aal hore waxaa loo yaqaanaa khibaar heerkanin mise aqoonsiga halista kuwa waan mutiya aniga mar walbaba xataa ardayda online-ka iyo ardayda iyo kan youtube-kaba waan isku dayi doonaa mar inaan sharaxo laakiin kuwa 25 su-aal ah waa qaar fudud oo dadka dhanba ay kusoo guuleystaan midka dhibka badan waxa weeyaan midka loo yaqaano verkeeris regels and inzichten ka ayaan diiradda saarayna insha allahu tacaala su-aasha 26aad Na welk bord kunt u bromfietsers op de rijbaan verwachten? A. Bord A. B. Bord B. C. Bord A en B. waxaa la yidhi na welke boord kunt u bromfietsers op de rijbaan verwachten boorkee kadib ayaa mootoleyda ka filaysa inay wadada gaariga oo loo yaqaano rijbaan aad ay macnaa soo koraan ay ku wadaan mootadooda bromfits waxaa loo yaqaanaa mootada dhexe oo taargada jaalada ah wadato koofidna qaadato sidoo yani koofidna loo qaato 45 kilometerna ku socoto marka nawelka boorkee kadib ayaa bromfits mootada loo yaqaan op the rijbaan wadada gaariga ku socdo ayaad verwachten ka rajaynaya mise ka sugaysaa boorka aaga weeyaan waayo boorka a wuxuu ku yaala mar walba Yurub gaariga waxaa lagu wadaa qaybta midig seedkaada waa seedka midig marka dhinaca midigta ah kan baad ka arkaysaa oo ku dhihi doono haye iska ilaali mootada loo yaqaano bromfitska wadada gaariga ayay soo kori kartaa kana sidoo kale asna arki kartaa laakiin marka waxaa leeyahay mootada ah bromfitska waxaad koraysaa waxaa loo yaqaano fitzpathka wadada baskiilka tana waxaa leeyahay mooto ama bromfits ka bax fitzpathka wadada baskiilka gal wadada caadiga waxaa leenahay iyadoo kasoo baxaysa fitzpathka ay soo koraysaa wadada loo yaqaano rijbaan wadada gaariga ku socdaa loo yaqaana Geeft dit signaleringsbord het einde van de autosnelweg aan? waxaa la yidhi boorkan miyuu kuu sheegayaa dhammaadka highwayga oo ah geeft dit signaleringsbord boorkan wax calaamadeeya oo korontada ah het einde dhammaadka van de autosnelweg aan oo highwayga miyuu kuu sheegayaa maya boorkan wuxuu sheegayaa waa midka korontada ku shaqeeya oo haddii highwayga saaran tahay oo xawaaraha waxaa lagu leeyahay iska bedel ama fila jirto ama jiro hawo xun baraf iyo roob iyo shil dhacay ayaa waxaa laga yaabaa kan in lagugu qoro xawaare hooseeyo orod hooseeyo mise snelad hooseeyo haddii lagugu qoro ka markaad meeshii xumeyd moodo mise hawadiis bedesho waxaa lagugu sameynaya calaamada noocan ah oo lagu leeyahay xawaarihii hore lagu soo siiyey waa kaa dhamaayay laakiin su-aasha waxay leedahay miyuu kuu sheegayaa boorkan wax calaamadeeya inuu highwayga kaa dhamaaday autosnelweg inay dhamaatay waa maya su-aasha waxaa dhamaatay ama dhamaadaybo boorkii hore lagu soo siiyey xawaarihii mise snelhadkii lagu soo siiyey inuu kaa dhamaaday marka su-aasha miyaaba mise waa ney waa ney waxaa si waadax jawaabta u tahay ney sababtoo highway kama dhamaanin Geeft dit bord een eenrichtingsweg aan? su-aasha xigta waxaa la yidhi geeft dit boord miyuu kuu sheegayaa boorkani
een inrichtingsweg wada loo yaqaan wadada halka jiha u socoto ama hadda si kale loo dhigo one way-ga ah. One way waxaa loo yaqaanaa wado oo aad inaad gasho keliya oo cidna kaa hor imaan karin adigana aad kusoo laaban karin oo boor kale ahayd boor buluug ah oo afar gees ah ayuu ahaa kaa. Laakiin kan waa mid wareeg ah oo falaar ku taalo kalarka iyo falaartaba way ka siman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin afar gees iyo falaar waa la yaqaanaa oo cashiradii horan aan soo geliyay oo ahaayeen kuwa khuseeya boorarka iyo calaamadaha ayaan ku sheegay. Ka afar geeska ayaa loo yaqaanaa wadada halka jiha u socoto. Kan wareegan waxaa loo yaqaanaa verplicht-richting waa in aad raacdaa falaarta meesha ku amreyso. Tani waa verplicht-richting ma ahan richtingsweg. Su-aasha jawaabteeda waxay tahay marka waa nay waa maya. De verkeersregelaar geeft hier een stopteken aan het verkeer dat hem A. van links nadert, B. van voren nadert, C. van rechts nadert. Waxaa la yidhi de verkeersregelaar geeft hier een stopteken. Qofka haga wadada oo loo yaqaano verkeersregelaar amaba waa trafikada qofka haga geeft hier een stopteken. Halkan wuxuu kugu sheegayaa waa tilmaam oo istaajin ah ama tilmaam oo ku leeyahay istaag ama joojin ah. Aan het verkeer wuxuuna siinayaa cidda isticmaalaysa wadada that him kuwaasoo asiga van rechts nadert kuwaasoo asiga ooga imaaday dhanka midig. Hadduu sidaa isku istaago uu gacanta midigna taago waxay ka dhigan tahay ciddii ooga imaaday dhanka midig inay istaagaan. Cashirada horaan kusoo qaadanay oo ahaayeen khuseeyeen waxaa loo yaqaano verkeersregelaarka. Waxaan leenahay marka insha Allah sayda. De verkeersregelaar geeft hier een stopteken aan het verkeer dat hem A. van voren nadert, B. van achteren nadert, C. van voren en achteren nadert. Waxaa la yidhi de verkeersregelaar waa qofka haga wadada geeft hier een stopteken. Halkan wuxuu ku sheegayaa calaamad istaajin ah mise tilmaam istaajin ah oo gacanta bidix ayuu taagay oo aan hore usoo baranay. Aan het verkeer wuxuuna u sheegayaa ciddii ooga imaada asiga that him van voren nadert oo ooga imaaday hore oo ay gacanta bidix markuu sidaa u taago waxay ka dhigan tahay in cidda asiga ka hor imaaday uu istaajinayo oo van voren nadert ooga imaanay oo macnaha ooga imaanaya hore. Waxaan leenahay marka insha Allah Mag u op de rotonde rechts en links inhalen? Waxaa la yidhi rotondada mag u op de rotonde rechts en links inhalen. Ma lagu ogol yahay markaad taagan tahay diyaaradda mise runabout-ka ama loo yaqaanaba rotondo in aad dhanka midig qof aad ka dhaafto dhanka bidix qofna aad ka dhaafto yacni rechts and links yacni sida caadada ah waxaa la ogol yahay inaad qof inhalin ku samaysid ama aad baasgaraysid ama aad moodabo dhanka bidix oo keliya. Laakiin rotondada haddii leedahay laba leen ama dhowr leen ama dhowr raystirooga waxaa la ogol yahay horteeda iyo dhexdeedaba inaad qof midigta iyo bidixdaba ka dhaafto ayaa lagu ogol yahay kusmayso inhalin. Waxaana la ogol yahay waa rotondada keliya iyo markii lagu jiro filadoo kaleete oo zaxmada lagu jiro iyo mar qof u laabanayo bidix dhanka midig kaga dhaafto iyo markii wadada highwayga looga baxo loo yaqaano waa block marketing aad ku sugan tahay oo qofna dhanka bidix uu ka taagan yahay adiga marka rechtska waa ka inhalgareyn kartaa. Mag u op de rotonde rechts and links inhalen. Ma lagu ogol yahay rotondada korkeeda inaad qof ka dhaafto dhanka midig iyo dhanka bidixba waya. U bent 20 jaar. Hoeveel promil alcohol in uw bloed is tijdens het rijden toegestaan? A. 0,2 promiel. B. 0,5 promiel. C. 0,8 promiel.
waxaa la yidhi u been 20 khiyaar waxaa jirta 20 sano ama 20 jir ayaa tahay 20 jir ayaa tahay huvel yani promil alcohol meeqa cadad oo alcohol ah is in uu blood strident tukhistan ayaa lagu ogolyahay marka inay dhiigaada ku jirto mise jirkaada goortaad wadaysid gaari ayaa la ogolyahay yani u been 20 khiyaar 20 jir ayaa tahay huvel promil alcohol imisa cadad alcohol in uu blood oo dhiigaada stridens goorteed aad headridena gaari wadaysid tukhistan lagu ogolyahay yani 20 jir baa tahay haddii aad mar 20 jir aad tahay oo aad laysanka kusoo qaadatay adigoo 17 jir ah 3 sana wadataa marka qofka hadduu 17 jir kusoo qaaday wuxuu noqonayaa ervara bestuder waxaa loo yaqaano qof khibrad u leh gaari wadidu ayaa loo yaqaanaa ervara bestuder 7 sana u baahanta inaad haysato laysankaada kadib aad noqonaysaa ervara bestuder haddii aad kusoo qaadayn 18 sano iyo wixii ka weyn waxaad u baahata 5 sano inaad haysato laysankaada kadibna waxaad noqonaysaa wax loo yaqaan ervara bestuder marka maadaama 20 jir aad tahay oo aadan ahayn qof khibrad u leh gaari wadidu oo aad tahay qof hadda gaariga barbaranayo kaleete qamriga lagu ogolyahay markaad gaari wadaysid inuu ku jiro dhiigaada waxaa loo yaqaanaa waa 0.2 waa promil oo aada ah qofka markuu ervara bestuder yahay waxaa loo ogolyahay uu bannaan inay dhiiggiisa ku jirto 0.5 wixii ka badan waa inuu gaariga iska dhigaa ama wuxuu la kulmi karaa ganaax hadduu gaari sii wado marka qofka da'da yar ah ama qofka gaari wadida ku cusub tahay oo aanan ahayn qof khibrad u leh gaari wadidu sidaan u sheegay hore ervara bestuderka waxaa laga rabaa inay ahaato 0.2 haddii ay ka badato ama boliis qabto waa inuu gaariga meeshii uu markaas maraayo uu dhigaa marka waxaan leenahay 0.2 Bij hoeveel meter zicht spreken we van zeer dichte mist? A. Minder dan 50 meter. B. Minder dan 75 meter. C. Minder dan 100 meter. waxaa la yidhi by hovel meter imisa meter ama meeqa mitir zikhta oo xagga aragtida ah spraykawi van zeer dikhta mist ayaan dhahnaa zeer si zaa'id ah dikhta kugu dhow mist yani ceereema si zaa'ida kugu dhow ayaan dhahnaa meeqa mitir aan ku sheegnaa yani haddii ceereemo jirto ceereemada aad kugu dhowdahay meeqa mitir ayaan u naqaanaa waxaa loo yaqaanaa haddii aragtidaada ay noqoto minder than 50 meter haddii aragtidaada noqoto 50 mitir ka yar waxaa loo yaqaanaa zeer dicht mist macnaha ceereemo aad kugu dhow zero waa si zaa'id ah dichtna dhowaansho mistigana waa ceereemadii marka by hoeveel meter zicht spreken we van zeer dichte mist waxaan leenahay insha allah minder than 50 meter Mistachterlicht mag worden gevoerd bij dichte mist met een zicht minder dan meter. waxaa la yidhi mista achterlichten nalka ceereemada dambo oo kan hadda u daaran gaariga mag worden gevoerd waxaa la daari karaa by dichte mist markay ceereemada ku dhowdahay met een zicht ay aragtidana noqoto minder dan in ka yar 50 meter minder than 50 meter waa in ka yar 50 meter antood adiga lagaa rabaa waa inaa qortaa Wie mag u niet hinderen tijdens het openen van een portier? A. Alle bestuurders. B. Alle weggebruikers. C. Alle motorvoertuigen. waxaa la yidhi wie mag u niet hinderen yaan lagu ogoleen inaad xayirto tijdens goortii het openen aad furayso van een portier portier waxaa loo yaqaanaa albaabka gaariga marna la dhaho duur hadda laakiin waxay leeyihiin portier wie mag u niet hinderen yaadan lagu ogoleen inaad xayirto tijdens goortii het openen aad furayso van een portier albaabka gaariga imkaa furayso oo aad gaariga ka tegaysid waxaan lagu ogoleen qof walbo isticmaalaya waddada ala weggebruikers
cid walba waddada isticmaalayso laguma ogola inaad macnaha dhibto ama aad xayirto haddii aad gaariga ka degaysid iyo haddii aad gaariga taagan yahay oo aad dhaqaajinayso markaa iyo haddii galagaala aad u socoto haddii aad kala firayn rabto waxaasoo dhan waxaa kaa leh AWB-gebruikers iyo wax lamid ah. Waardoor kan het brandstofverbruik worden verminderd? A. Zo lang mogelijk in een lage versnelling te blijven rijden. B. De cruise control te gebruiken. C. De motor warm te laten draaien voor het wegrijden. waxaa la yidhi waardoor kan het brandstofverbruik worden verminderd yacni qaabkee mise halkee kan het brandstofverbruik shayga wax guba isticmaalka shayga wax guba mise isticmaalka benziinka worden verminderd ayaad ku yareyn kartaa macnaha qaabkee mise noocee ayaad ku yareyn kartaa isticmaalka benziinka yacni benziin badan inaad isticmaalin marka gaari wadaysid sideed ku yareyn kartaa waxaa ku yareyn kartaa adigoo isticmaala waxa loo yaqaano cruise control gawaarida hore ma lahan laakiin kuwa dambe way leeyihiin kuwa xoogaha adiga wixii ka dambeeya 2005 iyo waxaas ayaan jeclahay marka the cruise control te gebruiken inaad isticmaasho waxa loo yaqaan cruise control aad daarto cruise control waxa weeyaan haddii qofka uu gaariga wado oo maxaa ku yidhahdaa 100 uu ku wado macnaha highway ayuu saaran yahay kaleete wuxuu macnaha rabaa inuu magaalo fog aado oo dhowr kilomitir ah oo saarnaan karo ugu yaraan adiga nus saac oo kale marka hadduu cruise controlka hadduu 100 geeyo highwayga oo xawaarihiisa sheelaraha mise khaaska riixo uu 100 ku istaajiyo hadba waddada waxay ku siinayso ugu badnaan inaad ku wadi karto haddaad geyso sheelaraha lugta saarto aad taabato cruise controlka marka uma sii baahnid in aad sii rixdo khaaskii mise sheelarihii waa ka maarantaa steeriga unbaad aad maamule taa marka waxay keenee in gaariga uu ku socdo hal orod mise hal snelheit mise hal xawaaro uu ku socdo oo 100kaad ku xirtay kaliya uu ku socdo laakiin haddaad saas aadan samaynin oo adiga lugta aad ku riixdo waxaa macquul ah aadamaha lugtiisa ama jirka ama gacanta hal meel macnaha ma hayn karto maanta oo dhan waxaa qasab ah inaad marna aad gaaska ku badiso gaariga marna aad ka dhinto taa waxay keenaysaa in baasiin badan aad isticmaasho laakiin cruise control haddii aad daarato baasiinka macnaha ayaa ku dhaqaaloobaya laleeyahay waa bay U staat hier stil om een passagier te laten instappen. Mag dat? waxaa la yidhi halkan ayaad taagan tahay you start here still halkan ayaad taagan tahay om en passagier te laten instappen si oo passagier ama qof kuu soo koraya gaariga aad u soo saarto gaarigaada magdaad ma la ogol yahay waha calaamada jaallada gogosan oo haddaad aragto waxaad meesha lagu ogolaya inaad istaagto laakiin inaadan parking dhigan ayaan la ogoleen hadday isku xirnaan lahayd calaamada jaallada ama rigada jaallada ah xataa inaad istaagto qof aad dejiso laguma ogolaan lahayn laakiin haddeertaan way gogosan tahay istaagoo keliya ayaa lagu ogol inaad alaab dhigto ama alaab aad ka qaado ama inaad qof dejiso qof ka qaado ayaa la ogol yahay marka waxaan leenahay haddeertaan qof ayaan qaadi rabnaa meeshan calaamadii ama riigada jaaladeed way gogosan tahay waxaan leenahay insha allah ya waana loo ogolaya inaan istaagno keliya Wanneer mag u een geluid of lichtsignaal geven? A. Om een gevaar af te wenden. B. Om aan te geven dat u wilt inhalen. C. Om een gevaar af te wenden en om aan te geven dat u wilt inhalen. waxaa la yidhi wanneer mag u een geluid of lichtsignaal geven goormee lagu ogol yahay wanneer mag u goormee lagu ogol yahay een geluid dhawaaq ama khaylo of lichtsignaal ama calaamad nal ah si geven inaad siiso mise aad isticmaasho yacni inaad qof hoon u yeeriso kale ama inaad qof nalkada aad u shido kaleete goormee lagu ogol yahay waxaa lagu ogol yahay om een gevaar af te wenden si aad oga hortagto mise aad u sheegto halis yacni qofka kaa horeeya hortaada taagan ama gaari wadaayo ama wax kala samaynayo hoonka ama nalka inaad u dhisiso dhagdhag
goormee lagu ogol yahay haddii ay halis tahay keliya unbaa lagu ogol yahay haddii asxaabtaada salaamayso kaleeto laguma ogolo laakiin dadka caadada way sameeyaan oo gaari wata laakiin si caadi ahaan normaal ahaan ama official ahaan lama ogolo waxaan leenahay marka om inkhifaar afterwinden yani hoonka inaad mar walba yeeryeriso ama aad nalka daardaarto lama ogola haddii aysan halis jirin Wat kan de afbraak van alcohol in het bloed versnellen? A. Niks. B. Koffie drinken. C. Water drinken. waxaa la yidhi what can the afbraak van alcohol maxay tahay waxa jibin kara alcoholada in head blood oo ku jirta dhiigga in head blood oo ku jirta dhiigga versnellen yacni inay inay dhaqso kaaga baxda alcoholada maxaa keeni kara ama waxa jibin kara alcohol oo dhiigga ku jirta inay fududaato maxaa samayn kara waxbo nits alcoholada haddii dhiigga kaaga jirto oo alcohol aa cabto wax jibin kara ma lahan coffee drinken ama water drinken yani coffee cab ama biyo cab macquul maahan wax jibin kara alcoholada ma jirto ilaa iyo waqtiga macnaha loogu talagalay inaad seexato ama saacadaha hadaad saacadii bar oo kale ama haddii hal glas aa cabto kale saacadii bar inaad joogto kadib ay ka baxay khiyaastii dhiiggaada Op welke wijze kunt u brandstof besparen? A. Door om te schakelen bij een zo laag mogelijk toerental. B. Door om te schakelen bij een zo hoog mogelijk toerental. waxaa la yidhi op welke wijze noocee kunt u brandstof besparen noocee mise qaabkeeba kuntu adiga aad brandstof macnaha brandstof waxaa loo yaqaanaa brand waa gubitaan stofn waa shay laakiin marka la isku daro waa benziinka mise shidaalka macnahay tahay yani brandstof waa shayga wax gubo mise benziinka noocee ayaa u dhaqaalaysan kartaa ereygana waa besparenna waa dhaqaalaysi noocee ayaad benziinka u dhaqaalaysan kartaa mise qaabkeeba waxaan leenahay aniga door waxaan leenahay aniga aada door om te schakelen adigoo marshada ku bedelayo door waxa weeyaan adigoo om te schakelen ku bedelayo by en zo laag mogelijk toerental sida ugu hooseyso ugu macquulsan yani waa tuurantalka ugu hooseeyo yani oona ugu macquulsan saacadda gaariga midan waxaa loo yaqaanaa snellheitsmeter kan waxay cabirtaa orodkaada mise xawaarahaada kan wuxuu cabiraa waxaa loo yaqaana waa tuurantal eregan tuuranteller yani wuxuu cabiraa inta tuur uu motoorka ku socdo hadduu qofka gaariga kiciyo uu number 1 geliyo mise kow oo gaariga dhaqaajiyo oo xoogaha sheelar hawado saacadana kacdo kana wuu kacayaa waxay ka dhigan tahay marka hadduu uu sii kaco adigana aadan marshadii bedelin oo xawaarahan aad kordhiso oo kan zaid tago adiga 2,000 oo sii dhaafo waxay ka mid tahay in benziinka aad macnaha isticmaalaysa because xawaaro saraad ku wadaa marsho ka yarne way ku jirtaa weli marka tuurantalka ugu hooseeyo oona ugu macquulsan inaad ku bedesha laga rabo marshada markay sii marayso 2,000 oo kale ayaad bedelaya tuurantal waxaa loo yaqaanaa baashan tuurantal waxaa loo yaqaanaa saacadan tana waxaa loo yaqaanaa snellheitsmeter tana waxaa loo yaqaanaa tuurantal yani kan markaad gaariga kacso 1 geliso dhaqaajiso saacadda oo orodkana way dhaqaaqe kana way dhaqaaqe kana waxay sii maraysaa marka 2,000 inay tage haddii aadan bedelin uu dhaqaaq macnaha wuu sii soconaya asiga xataa baabuurka guuxiisa wuu isbedelaya wuxuu ku leeyahay marshada way igu yartahay bal iga bedel haddaadan ka bedelin waxay ka dhigan tahay marka inaad gaariga khasbaysid oo macnaha isticmaalaya benziin badan marka adigoo ku bedelaya marshada isqaakalen waa bedelid marshada isqaakalen waa marshadii naftirkeeda laakiin isqaakalen waa bedelidii adigoo ku bedelaya marshada tuurantalka ugu hooseeyo adigoo ku bedelaya marshada insha Allah tacaala yani adigoo marshada ku bedelayo tuurantalka ugu hooseeyo oo markuu marayo 2,000 camal marayo inaa bedesha laga rabaa waxaa leenahay hadda insha Allah door om te schakelen bij een zo laag mogelijk toerental insha Allah
waxaan leenahay aada. U nadert een bocht en geeft extra gas. De centrifugaalkracht A. Wordt groter. B. Wordt kleiner. C. Blijft gelijk, stabiel. waxaa la yidhi unadart en bocht waxaad galaysaa leexad mise goolad oo loo yaqaano bocht an geeft extra gas waxaadna siisay gaas dheeraada yacni gaas dheeraad yacni orodkaadaad kordhisay laga wadaa marka waxaa la yidhi the centrifugal kraft yacni quwadda oo wareegaad wareegan lahayd ya muxuu noqonayaa marka su-aashaada lagu weydiiyey kala wareega ama awoodda wareegaad wareeganaysid wuxuu noqonayaa mid weyn word groter يعني the centrifugal kracht wareega awoodda wareega centrifugal waa wareega wareeganaysid kraftina waa awood ama quwad centrifugal kracht wuu weynaanaya marka insha allah. Welke markering is tijdelijk? A. Gele. B. Blauw. C. Witte. waxaa la yidhi welcome markering is tijdelijk markering waxaa loo yaqaanaa calaamadayn waddada la calaamaliyey oo stripkan jaalaha loo yeelay mise riigada jaalaha loo yeelay ayaa loo yaqaanaa markering waa markin marka welcome markering calaamadaynte is tijdelijk ayaa ah mid macnaha sii jiri doonto waqti cayiman oo laga yaabo inay halowdii meesha ka dhaqaaqdo ama laga masaxo oo midda cad la sameeyo midka oo macnaha weligiisa meesha ku taalnaan doonto waxa weeyaan kan cadka midka ah foreverka waa midda cad laakiin midda jaalada waa mid tijdelijk waa temporary waa mid muddo yar sii socon doonto waa jaalaha ayaa ah midda tijdelijka tijdelijk waa wax sii socon doono waqti cayiman. U heeft een nieuwe benzinefietser, 2 bromfietser, 3 autobus. A. 1 jaar. B. 3 jaar. C. 4 jaar. waxaa la yidhi u heeft een nieuwe benzineauto gekocht waxaa soo gadatay gaari oo benziin ku shaqeeyo oo cuseeb ah na hoeveel jaar meeqa sano kadib moet de APK moet de APK koerin plaatsvinden ayay tahay in waxa loo yaqaano APK-ga uu dhaco APK waxa weeyaan sanad walbaba gaariga hadduu uu gaari waayeel yahay ama gaari hore oo sanadahoos jira yahay ama duq yahay waa in sanad walbaba oo la geeyo wax loo yaqaano korin lasoo chekima lasoo ansixiyaa inuu gaariga wax ka halaysan yahay kaleete waxaa loo yaqaana marka waa APK korin waa alqamena yani periodika korin waa macnaha waa general waa muddo general ah oo gaariga in la chekimay tahay lasoo ansixiyo goorma u dhacaya marka hadduu gaariga cusub yahay oo benziin yahay hadduu gaariga benziin yahay oona cusub yahay 4 sano kadib ayaa mataqaanaa la ansixinayaa lasoo chekimaya waxaa laga soo eegaya wixii ka halaabi doono ama wixii uu hadda rabo in la bedelo ayaa laga soo ansixinaya hadduu gaariga yahayna diesel iyo gas yahayna ayagana waa 3 sano laakiin midka benziinka ah waa 4 sano midka benziinka ah iyo midka loo yaqaano waa korontadana waa isku mid waa 4 sano ayagana. Zijn er geneesmiddelen die invloed hebben op de rijvaardigheid? waxaa la yidhi zayn miyay jiraan geneesmiddelen waxyaabo lagu daawoobo mise daawooyinka kasoo qabo geneesmiddelen waxyaabo lagu daawoobayay die invloed hebben kuwaasoo ku leh saameyn op the rijvaardigheid xirfadda gaariwadidu wax ku leh saameyn ma jira yacni daawooyin ama waxyaabo lagu daawoobo oo saameyn ku leh influedka ayaa saameyn ah op the rijvaardigheid xirfadda wadida ee gaariga ku leh saameyn miyay jiraan haa daawooyin ayaa jiro oo aanan ahayn wax badan laakiin oo hadday leeyihiin daawada sticker jaala ah ama sticker khayl ah
waxay ku leeyihiin xirfadda gaari wadidu saameyn yani inaadan gaari wadi karin ayaa taa ku qoran yani stickerka jaalaha. Een bewusteloos slachtoffer begint te braken. Wat is de beste lichaamshouding? A. Houding A. B. Houding B. C. Houding C. waxaa la yidhi een bewusteloos slachtoffer yacni ereygan waa bewusteloos qof suuxsan slachtoffer oo haddana dhibana ah qof dhibana ah oo suuxsan biqinti braken inuu soo neefsado ama soo hunqaacayo bilaabay. What is the best lichaamshouding maxay tahay sida aad u dhigi lahayd oo macnaha ugu wanaagsan sida aad u dhigi lahayd oo ugu wanaagsan waa sidee sida ugu wanaagsan waa sida tan sayda macnaha inaad u dhigto dhinac ayaa wanaagsan dhabar mise xabad wax fiican maahan sayga oo aad u dhigto si garab oo u dhigto ayaa wanaagsan. waxaan leenahay marka anaga howding say howding waa dhigida u dhigtay waana sayda lichaamshouding sida u dhigi lahayd waxa weeyaan midda sayga. U wilt hier rechtdoor. Moet u de motor voor laten gaan? waxaa la yidhi adigoo gaariga jaalaha wato elka ah gaariga elka adaa wato mar walbo u wilt hier rechtdoor halkani toos ayaa rabtaa adigoo gaariga jaalaha wato mutu miyaa ku khasban tahay the motor fola taqaan in uu kaa hormaro mootada miya adiga ku khasban tahay maya mootada inuu kaa hormaro kuma khasbanid waayo wadadan wada loo yaqaan gelijkwaardig kruispunt waay macnaha isgoos loo siman yahay yacni wax haytande ah stopboard ah wax mataqaana ay sheegay kale ama boorar ma yaalo wada loo siman yahay waay wadada loo siman yahayna ciddii ka imaaday midigta un baa leh hadda adiga ayaa ooga imaaday mootada midig marka ma siinaysid adiga kale haddii su-aasha ay ahaan lahayd mood the motor u for laa taqaan mootada miyuu ku qasban yahay inuu adiga ka hormarsho waa haa laakiin haddeertaan adiga ma ku qasban tahay inaad mootada hormariso waa ney adiga kale. Bij welk bord is inrijden toegestaan? A. Bord A. B. Bord B. C. Beide borden. waxaa la yidhi by welke board is inrijden toegestaan boorkee lagu ogol yahay inaad adiga gaariga ku wado midka bayda ah in la galo lama ogolo in xagga ka imaadana lama ogolo laakiin midkan waxaa la yidhi wuu soo dhammaanaya mise wuu soo xirmi doonaa waddo loo yaqaano dot lobend weg waddo soo dhimanaysa wey kan laakiin waad gali kartaa hafkaas hore ayay kasoo dhimanee mana kasii bixi kartid marka waxaan leenahay boord aaga ayaa inaad ku wado gaari lagu ogol yahay laakiin kan marnaba laguma ogolo. by welke board is inrijden toegestaan boorkee baa la ogol yahay inaad ku wado inrijden inaad gasho ku wado toegestaan la ogol yahay kan aage. U wilt hier 25 kilometer per uur rijden. Mag dat? waxaa la yidhi u wilta adiga waxaad doonaysaa hier halkan 25 ama 25 kilometer 25 kilometer per uur saacadii raydin inaad ku wado maqdad ma la ogol yahay haa waa la ogol yahay 10 ayaa inta lagugu qoray 10ka laakiin maahan orod mise xawaaro meel ay ku qoran tahay Yurub mise Holland ya ma jirto wax 10 ah 15 unbaa la ogol yahay meelaha qaar oo ah xaafadaha loo yaqaan erafka inta 10ka waxaa laga wada wax weeyaan gaarigii ka culus 10 tan weeyaan ma gali karo wadadan laakiin adiga gaariga wuu yar yahay laakiin 25 kilometer oo ku wadi kartaa sawirka iyo su-aasha lagu weydiis ma lahan 25 kilometer oo ku wadi kartaa intana waxaa ka hadlayaa culeyska waa 10 tan tada wax weeyaan tan hadda waan ku wadi karnaa meeshan 25 kilometer saacadii. U wilt hier rechtsaf. Moet u het invalide voertuig voor laten gaan? waxaa la yidhi u wilt hier waxaad doonaysaa adiga gaariga jaalaha wata rechtsaf inaad midigta u laabato
Moet u de invalide voertuig miyaa ku khasban tahay gaariga oo invalidka ah ama oo handicapka wato voorlaatqan inuu kaa hormaro waa haa adiga waad laaban rabtaa asigana dhanka midigu kaa jiraa wuxuuna rabaa inuu toos aado oo qofka laabanaya waa adiga haddii marba qofka laabanaya adiga aad tahay cid kalood macnaha waddadooda hortooda arta inaad marto way kaa leeyihiin waxaan leenahay marka yaa U wilt rechtdoor. Moet u de afslaande tram voor laten gaan? waxaa la yidhi u wilt rechtdoor adiga waxaad doontaa gaariga wata eelka ah waxaad u socotaa toos inaa aadaa doonaysaa laakiin moet u miyaa ku khasban tahay adiga the afslaande tramka laabanayo voor laten gaan inaad siiso miya uu kaa hormaro waa haa tramka haddii isgooska sinaanta ay tahay hadduu leexanayo hadduu toos rababa asiga ayaa iska leh waxaan leenahay markaa tramka oo leexanaya waa naga leeyahay waa yaa U wilt linksaf. Een vrachtauto komt u tegemoet. Wat doet u? A. Ik rijd door omdat ik voorrang heb. B. Ik wijk uit naar rechts en stop. waxaa la yidhi u wilt linksaf gaarigana wataadi eelka bidix ayaa horta inaad u laabato linksaf waa bidix ayaa u laabanaysaa in vrachtauto gaari weyn oo traag ah komt u tegemoet ayaa si macnaha kaaga hor imaaday si degdeg ah what to do maxaa samaynaysaa maadaama adiga aad oga timaaday dhanka midig oo adiga aad ka leedahay wuxuu leeyahay ik rijd door hore ayaan soconaya omdat maxaa yeelay ik voorrang heb aniga ayaa iskale mudnaanta waa qalad gaariga waa weyn yahay traag weeye hadduu asiga soo galay meesha waxaa wanaagsan inaad ka duruqdo aadna istaajiso gaariga waad ka leedahay laakiin haddaad ka leedahay haddana madax adigto sii socoto lama rabo waxaa leedahay ik wijk uit naar rechts waxaan oga weecanayaa dhanka midig aan stop waana joojinaya gaariga waa b Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietser. 2 bromfietser. 3 autobus. B. 1 bromfietser. 2 autobus. 3 fietser. C. 1 autobus. 2 fietser. 3 bromfietser. waxaa la yidhi what is here the juiste volgorde sida laiskugu xigo loo kala macnaa oo u saxan maxay tahay sida oo yacni oo ugu wada saxan oo laiskugu xiga oo loo kala hormarayo sidee weeye waddadan sidoo kale wadda oo loo yaqaano gelijkwaardig kruispunt waa isgoos loo wada siman yahay sinaantana waxaan ula jeedaa wax mataqaanaa reeqol ama wax haytandi ah ama wax mataqaanaa boor ah meesha ma yaalo marka cid walbo ka imaaday dhanka midig ayaa leh haddeertaan baaskiilka ayaa dhanka midig joogo wuxuun u leexanayaa dhanka midig asiga ayaa ugu horeeyo waxaa ku xiga mootada loo yaqaano waa bromfits iyadaa ku xigto waayo baska ugu dambeeya asiga yacni qof walba oo dhanka qofka ka jira dhanka midig inuu siiyo waay baska waa inuu siiyaa mootada ooga imaada dhanka midig mootada loo yaqaano bromfitska inay siisaa baaskiilka ooga imaaday dhanka midig ugu horeyn fits baaskiil labaad bromfits mootada saddexaad autobus waa baska sida saacaddii oo kaleeta ayaa la yidhahdaa ayaa loo wareejiyaa saan dhag wey insha allah waxaan leenahay hadda markaa aada Wat is hier de B? Te verhogen. A. 1 fietser. 2 bromfietser. 3 vrachtwagen. B. 1 vrachtwagen. 2 fietser. 3 bromfietser. C. 1 vrachtwagen. 2 bromfietser. 3 fietser. waa sidoo kaleete sida ugu saxan oo laiskugu xigo loo kala lahaanayo sidee weeye waa sawir kale oo ah gelijkwaardig kruispunt baaskiilka ayaa hadda jiro midigta gaariga weyn oo traaga ah ama loo yaqaano vrachtautoga
wuxuu siinayaa qofka uga imaaday dhankiisa midig waana broomfieldka mootada oo loo yaqaano broomfieldkani waxay siinaysaa qofka dhanka midig uga imaaday ugu horeyn waxaa baxaya baaskiilka kadib waa broomfieldka kadibna gaariga weyn farta autoga oo aad ah U wilt zo gaan rijden. Mag dat? waxaa la yidhi u wilt adigu waxaad doonaysaa rabtaa zow sida tan khaan rijden ina wada gaariga maqdad ma la ogol yahay waa maya yacni gaarigaada wadaa waxaad ku xirtay wax loo yaqaano aanhang waaqan waxana waa saartay biro dhadheer mise waxa dhadheer ah saartay maro gaduudanna waad ma saartay lama ogola maro gaduudan yacni wax inay soo dheeraadaan waa la ogol yahay ilaa dhowr mitir 5 mitir laakiin maro gaduudan keliya lama ogolo boor loo yaqaano markings board oo cad iyo gaduud ah ayaa loogu talagalay marka sida tan gaari ma wadi kartaa waa maya U stopt hier om een passagier uit te laten stappen. Mag dat? waxaa la yidhi halkan ayaa istaajisay uu stopta here gaariga halkan ayaa istaajisay om en passagier uit laat stappen si aan rakaab gaariga uga dago maqdad ma la ogol yahay waa maya waxaan loo ogoleen sebraha ama calaamada cad oo loo yaqaano zebrabadka inaad agtiisa istaagto lama ogolo waa bina 5 meter 4 and 4 by 5 mitir intaan aan la gaarin gudaheeda ma istaagi kartid zebraha iyo 5 mitir markaad dhaafto gudaheeda lama istaagi karo zebraha waa bina 5 meter and bina 5 meter 4 and 4 by lama istaagi karo zebraha hadeertaan marka waxaan leenahay lama istaagi karo waa ney qof ayaad inta ku dajirtaa ma la ogol yahay waa ney U wilt hier inrijden. Mag dat? waxaa la yidhi u wilt here inrijden waxaad doonaysaa inaad halkan ku wada gaariga maqdad ma la ogol yahay waa ney waayo halkan gaariyaa wadataa waxaadna ku xirtay aanhang waaqan boorka wuxuu sheegayaa qofkii wato aanhang waaqan jiidaayo meeshaan ma mari karo boorka wuxuu sheegayaa ciddii wadato waxa loo yaqaano aanhang waaqan ma geli karo marka that's why ama daarum ma gali kartid halkan waa inaad kasoo noqotaa haddii aad keligaada tahay oo kan aad kasoo dhigto haa waa lagu ogol yahay U wilt zo blijven rijden. Mag dat? waxaa la yidhi u wilt zo blijven rijden waxaad doonaysaa inaad siditan usii wado gaariga maqdad ma la ogol yahay waa maya su-aalaha inta badanaa zo ay ku jirto waxa u badan ney marmarka qaar inay sax noqoto yaa noqoto waa laga yaabaa laakiin haddii zo inta badan aad aragto waxay tahay ney marka waxaa lagu leeyahay sidatan inaad usii wado gaariga aad rabtaa ma lagu ogol yahay waa maya sababta lagugu diiday maxay tahay sida caadada waxaa badbaadada ay ku jirtaa inaad laynka midig saarnaato adigana waxaad saaran tahay dhanka bidix oo halista ah marka waddada highwaygaane waa mid firaaqa ah waddada highwaygaane waa mid firaaqa ah oo aanan baawuro badan ku sugnayn ka midigta oo fayliqa ah ama ku jirto badbaadada ayaad kori kartaa adiga laakiin madax adeegaada waxaa saaran tahay midka maxaa ku yidhahdaa ii sheegay bidixda jiro iyadoo waddada free ay tahay marka waxaa leeyahay insha allah kan ma sii saarnaan kartaa waa ney waa maya U parkeert hier met stadslichten. Mag dat? waxaa la yidhi magaalada gudaheeda ayaad barking dhigatay waddada loo yaqaano raybanka ayaad gaari dhigatay waxaadna daartay u parkeert hier halkan ayaad parking dhigatay waa magaalada gudaheeda helmond hier het stadslicht met stadslicht waxaadna daaratay nalka loo yaqaano stadslicht waa nalka magaalada maqdad ma la ogol yahay yani nalka waxaa loo talagalay in aad maxaa ku yidhahdaa ii sheega hadduu ilaahay idmo aad ciddii adiga oo kaa hor imaan lahayd inay aragto ama cidda waddada isticmaal inay aragto gaariga sisan ugu dhicin gaariga wuu parking garaysan yahay waa haween mugdi ah waa in aad daartaa stadslichtiga magaalada gudaheeda khasab maahan laakiin magaalada banaankeeda haddii gaari aad baarkimato waxaa qasba inaad nalka daarto loo yaqaano stadslicht waa yaa Wat is uw toegestane maximumsnelheid op deze weg? A.
80 kilometer per uur. B. 60 kilometer per uur. C. 100 kilometer per uur. waxaa la yidhi what is u toegestaan maximum snelheid op deze weg maxay tahay xawaaraha ugu badnaan lagu ogolyahay toegestaana lagu ogolyahay waaye maximum snelheidna xawaaraha ugu badnaan waay op deze weg wadadani wadadan waa laba riigo mise laba streep oo dhexda ah oo googoosan hadday googoosan tahay labadabo ama hadday isku xiran yihiin labaduba wadada waxay tahay 80 waa wada 80 ah weeye marka waxaan leenahay insha allah waa 80 kilometer per uur oo ah ayaan dooranaynaa U wilt rechtsaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? waxaa la yidhi waxaad doonaysaa u wilt rechtsaf waxaa rabtaa inaad aad u laabato dhanka midig qofka oo lugaynayo ma ka hormaraya miyay tahay inuu kaa hormaro waa haa adiga waad laabanaysaa waxaad ka baxaysaa rotondada qofka laawadka samayn doona waa adii oo wax special ay samayn doona marka waxaa loo yaqaanaa waa bisondora maneuver ayaa samaynaysaa marka adaa ka baxaya meesha wadadaadii qofka laakiin toos ayuu rabaa dhabarkiisana waad arkaysaa hoos horena wuu rabiyaa waa siinaya hadduu halkaa tagnaa lahaa oo inta soo rabi lahaa labadaba waa siin lahayd insha allah waxaan leenayaa wuu naga leeyahay Wat is uw toegestane maximumsnelheid op deze weg? A. 80 kilometer per uur. B. 100 kilometer per uur. C. 60 kilometer per uur. waxaa la yidhi what is uw toegestane maximum snelheid op deze weg maxay tahay waxa lagu ogol yahay xawaaraha ugu badnaan op deze weg wadadani waa boorkii ama su-aashii tan ka horeysay oo ahayd xawaaraha 80ka haddii labada straight mise labada riigo ay isku dhegan yihiin waa wadada waa 80 labada dhinacna ay macnaha leedahay underbrook straight riigo kale oo macnaha googo-on midda dhexdeena oo loo yaqaana as straightna waxa weeyaan inay isku xirnaato ama inay googoosanaato dhibaato ma lahan labadaba wadaba waxa loogu talagalay inaad ku wado 80 ugu badnaan lagu ogolyahay U wilt rechtsaf. Moet u de voetganger voor laten gaan? waxaa la yidhi u wilt rechtsaf waxaad doontaa inaad gasho midigta u laabato mut u de voetganger miyaa ku khasban tahay adiga voetganger qofka lugaynayo foolaadka inuu ka hormaro waa haa sababtoo ah meesha waa erf erfka waad ka baxaysaa haddii aad meel ka baxayso waxaa loo yaqaanaa outrid haddii outrid aad ka baxaysidna cid walba waddada isticmaalayso ha lugeeyo mise wax ha wado way kaa leeyihiin hadda waxaa leenahay insha allah waa yaa Wat is hier de juiste volgorde van voor laten gaan? A. 1 fietser. 2 auto. 3 bromfietser. B. 1 bromfietser. 2 auto. 3 fietser. C. 1 fietser. 2 bromfietser. 3 auto. waxaa la yidhi what is here the juiste volgorde van voor laten gaan maxay tahay sida loo kala leeyahay ama sida iskugu aadan oo loo kala hormarayo oo macnaha ugu saxan wadadan waa wada oo xeer leh oo ah inay boor leedahay boor loo yaqaano forangsbord ama forangsweg iyo boorar iyo calaamo dhul oo loo yaqaano hightown ayay leedahay sawirka haddaan eegno baaskiilka wuxuu leeyahay boorkii jaalaha ahaay oo ahaa forangsweg wadada mudnaanta asiga ayaa uga horay baaskiilka wuxuu leeyahay wadada mudnaanta waayo gaariga cad wuxuu leeyahay hightown oo ah ilkaha iyo xaaska waxaa la leeyahay give way ama sii mudnaanta dadka sii wadada ayaa la leeyahay gaariga cad mootada loo yaqaano waa broomfiska sidoo kale iyadana waxaa la leeyahay wada c because halkay taagan tahay ma lahan hightown laakiin halkan ayay ka imaaday hightowntii meeshuu lahaa
marka waxaan leenahay ugu horeyn waa baaskiilka waxaa ku xigo gaariga cad oo macnaa leexadka u dhow oo loo yaqaano kortbocht iyo mootada oo leh langbocht ayaa ku xigta insha allah waxaan leenahay fits baaskiilku auto gaariga brumfits mootada loo yaqaano brumfitska waana a U wilt hier de motor inhalen. Mag dat? waxaa la yidhi halkan waxaad doonaysaa inaad mootada dhaafto ma la ogol yahay waxaan leenahay halkan inaad mootada dhaafto garab marto ma la ogol yahay waa maya u wilt hier the motor inhalen magdad halkan waxaad doonaysaa adiga inaad mootada garab marto moodo magdad ma la ogol yahay waxaan leenahay nay waayo meeshan waa meel goolad ah oo haddana ciddi kaaga hor imaan karta aadan ogeyn mootadana ma dhaafi kartid waa halis waxaan leenahay nay insha allah waa maya U wilt hier rechtdoor. Moet u de uitstappende trampassagiers voor laten gaan? waxaa la yidhi u wilt hier rechtdoor gaariga elka ah adiga ayaa iska leh waxaad doonaysaa halkan inaad toos u socoto gaariga u wado mutu ma ku khasban tahay adiga the uitstappend trampassagier qofka ka degaayo ama cidda ka degayso rakaabka ka degaayo tramka oo tram macnaha ka degaayo foolaad tahay inay ka hormaraan miya waa haa cidda ka degayso tram macnaha way kaa leedahay waayo footgangerka hadduusan lahayn meel loo yaqaano waa platform mise meel haaltoo kaleete hadduusan lahayn meesha oo tramka wuu kaa leeyahay hadduu laakiin uu leeyahay meel adiga marshabeedo kaleeta uu istaagi karo oona u ah badbaado ama fayliq u ah markaas kaama lahaan lahayn laakiin haddeertan wuxuu macnaha ku degayaa raybanka hadduu marna raybanka noqoto inuu ku dego wuu kaa leeyahay waa inaad siisaa waddada gaariga luuda ayuu ku degayaa markaas waa naga leeyahay insha allah okay waa afartiga su-aal laga bilaabo 26 27 ilaa 65 kuwa kore asaan horu sheegay 25 ahay maanu ka jawaabin 25 maana ka jawaabin wuxuu leeyahay 25 waad ku dhacday 40 waad ku guuleystay sababta 25 habadna maanan ka shaqaynin laakiin waxaan ugu talagalay kuwan cidda kastaba hadday ayaga ku tababarato way taqaanaa midka lagu adag yahay ama dhibaatada badan leh waa kan waxaan is leeyahay cajaladdan dad badan waxay leeyihiin waa cajalad hore ama duq ah oo sanado hore jirtay laakiin waa cajalad su-aalaheeda ilaa iyo hadda xarunta CBR-ta oo Central Bureau oo mataqaanaa oo ilaa hadda laga helo keliya dhowr su-aal oo ilaa iyo 5 gaaray unbaa laga bedelay maanta waxaan qaadanay cashirkii koowaad waxayna ka kooban tahay cajaladdan 10 cashir waxaan isku dayi doonaa inaan 10 cashir badhamay hadduu ilaahay idmo waana idin salaamayaa dhammaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh